وهاجا dhegeystayaal bilhaantii meel kasta aad joogtaan iyo si kasta aad maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan sheekadii la magac baxday sixir iyo saxariir jecel qaybteedii lixaad حوالي مقالدان inaan soo wareego maxaa dhacday guriga fadhigiisa badan murugo ugu dilay gabadhayda kaligeed gabar aan ka qabay waxaan ku arkay walbahaar fikir hadaan dhaho intee ku xanuunayso hooy taqtar man ku geeya may hooyo waxaan hooyo cuni ma kari hadii aad xanuunsan tahay taqtar aan ku geeyo sheek maya ma xanuunsanay taqtar ma rabi maxaa rabtaahe may hooyo iyo waxay iga bixi weysay murug aan dhamaahayn iga bixi weysay gabadhayda falisay marka waxaan ku sameeyay maqaan waxay igu riday inaan kaligay hadlo inaan magaalada kaligay marmaro ay igu riday falis aniga wax ka maqan male xataa waxaan iri hadii aad qof jeceshahay jecel waa dhici kara oo anigaba aabaheed anoona jeclaanin isma guursanin asna waa jeclaay ana waa jeclaay يا أنا قبلت إذا أنت حتى كحري معي قف كيف يسجعلين وحن كله ياي إذا السيربت أي كيليسو أنا هو أفصحايا لكن أفكرتك قليه وحي شيء جيس ماله وحي شيء جيسو ماله قبدي فاليس هو محكو داري مرقباي هيس قبدي فاليس هو محكو داري محاذيقا قاريسا gabadhaydi faaliis hooyo maxaa ku daaray maxaad iga qaraysaa kulay wixii la qariya ayagaa soo bixi doonaan dhib malo ay wiilka dukaanka uu sii camirtabe assalaamu calaykum وعليكم السلام ما توحى أملس أنا حقا بوقسن تهيو عبارة ماشان قبل كو قاديسي مسجرة هوي قبرت معناه حقا إيجا حنوصل دكتوران كوجيا دائر ما أقوله ونقول معونيسو أفر لا تنسى دينك سيستا وهذا القف جعشة حتى إيش شيء عن ضحي أو جعلكم ولا صوت مر واحد ما هن واحد ما هن جعلك ولا صوت مر ما يقف مجعلي مركا مركتا ساي هي السي لكن ما حكون على قبل سلاحية قبل هذا حنوني ما لجفت ميت لكن وقف قرقي هسه إسكشده عجل وحاول دار الموبايل كاس وحن كلها هاي سريرتا سيجفتا جامعة ما أدو ما كان أنا وحي قريسو لكن كل ويسو بحدانان لما لنا حالة كلا إيو نلشي نكورة مسيتي وفي عنا الحمد لله وحبلا يا مجران هذيك ورسيه ماشى ما لقب سطح ها ولا قبصدي حوغا waxa ka dambeeyay rag saaxiibadey walaalahay lacag ii soo direen markii hore gaar gacankii aan ku shaqaystay arkeen sawir laga qaaday dibadda loogu diray marka sidaas darteed way iga naxeen way ii soo gurmadeen lacag ii soo direen kistii aan haystay aan ku darsaday goobta cosmetics-ka hadda u jeedo hadda aad u camaran tahay waaba ما شاء الله قروح برنتاي وحا لغو ملايا ganacsadayaalka waaweyn oo kalento waaba tahaybo hadaba maaragta dukaankaaga aad camiratay oo wixii lagu soo diray wax ku qabsatay ma sha Allah yaab iska heli karabo hadda waa xoogay camal ay soo direen waa isku darsaday marka goobta hadda aad u weynaatay marka dad badan macaamiil la waa helay oo gabdho badan oo xiga gatay inkastoo rag wax kale oo faa'iido laga helayo male isqurxiskaan gabdhaha gabdhaha maqaarka iska fiiqaayo oo waxaan ku leeyahay rabaan maqaarka dhanay iska dhigeenbo hadda barkaday galowaan barkad ama far kartaa barkadana oo ku soo dareena hadii ay dhacdo in aan daawadii gadnay bal haday dhacday barkadiina oo ku dareena si ugu dabaasha waa sidaas afka sharaftiiska gadajaan barkadaas la dabaala xididkii oo cagaar ah banaanka soo baxayo dib waxaas laakiin waxa fiican xogaa waa la isnaashnaa waa la isqurxiyaa laakiin maqaarka saas in la iskaga xuubiyo ma fiicno dhibaatada ku gaartay lagu matali karo هذا ما حنا قال هذا نوع وين سوق قرتي وقضنا وما معاشنا فائدة هلينا effects سامين تقفك وجيسني سوا قفك تصالح كره مركي أو واحد هان قلدا أو كو طبقة كذا واحد يشتري يكون سيجار كذا طبقة عافمات كو درنته مركان لو أول شيء إن عافمات كو درنته هان لين هاي بس هذا يقدرنا هنا هذيك لا يقول تلا
ay keenta lugaani ku gatowaan dib male waayahay waa ka sii tagaa meelaana waxaan rabaa inaan alaab ka soo gagadee alaab maacuunha u baahnaaye waa ka sii tagaya ay shaqaysanayo wax isku tar waa shaqaysanayaa ninaan shaqaysan shaa waa ka xaraan waa tay dhihi jireen Soomaalidu waa iga go'an tahay inaan shaqaysto marka hadda meeshaanna waa la socotaa qaabkan ku dhisnay oo ganacsigeedu uu yahay ma sha Allah adna waxaan filayaa inaan macaamiil far badan soo aroorido hadda inkastoo aan wax badan faa'iiday maalmahan oo ganacsigeyga hore uu dhaqaaqay maalmaha soo socdana aan rajaynaynaa halka ka sii wado إن شاء الله خير ogeysiis waxaa dhammaan la ogeysiinaya dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho nawaaxigeeda in safar shaqo kadib magaalada dib ugu soo laabtay Sheekh Muniir oo xarun cusub ka furay kana shaqo bilaabi doona insha Allah xarunta cusub ee Shiiqa waxay wax ku daweynaysaa quraanka kariimka sunnaha nabiga dawadhireed casri ah Allah ayaa dawada haye xarunta Sheekh Muniir xanuunada ay daweynayso waxa kamid ah isha jinka sixirka xasadka shakiga umulsabiyaanka baawasiirka infectionka hurdalaanta walwalkii walbahaarka waswaaska himada ragga iyo dumarka iyo samboorka Sheekh Muniir wuxuu ka soo shaqeeyay magaalooyinka Boosaaso Hargeysa Garowe Cadaada Kismaayo iyo Muqdisho oo haatan xarun cusub ka furay sheekha wuxuu muddo dheer la soo shaqeeyay Sheekh Cabdul Xaq xarumihiisa Boosaaso iyo Hargeysa Sheekh Muniir waxa uu xarun cusub ka furay magaalada Muqdisho wuxuuna ka guuray xaruntiisa hore xarunta cusub ayaa ku taala isgoyska warshadaha gaar ahaan xirgulwada agaarkeeda wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir eber lixal 3 33 63 45 eber lixal 3 33 63 46 ama eber lixal 3 33 63 47 hadaba horu gaara xarunta Sheekh Muniir ogeysiis deegaan voluntary hospital waxa uu ogeysiinayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda in isbitaalka si toos ah haatan ay kaga howlgalayaan dhaqaatiirtii bulshada ay wada sugayeen sidoo kale isbitaalka waxa lagu soo kordhiyay qalab caafimaad oo tayo leh isbitaalka dhaqaatiirta ka howlgalaysa waxa kamid ah dhakhtarka cudurrada guud ka daweynaya dhiigkarka sokorta wadna xanuunka gaaska kaliya xanuunka gargaar degdeg ah 24 saaca sidoo kale isbitaalka waxa ka howlgalaya dhakhtarka cudurrada cunaha dhagaha sanka iyo maqaarka sidoo kale isbitaalka waxa uu daaweynayaa dadka waaweyn ee isku kaadshay sidoo kale caruurta isbitaalka qalabka casriga ee uu adeegsanayo waxa kamid ah kombiyuutarada urkujirta oo lagaga baarayo kaliya xanuunka kaadihaysta dhagaxaanta gala kaliyaha beerka xameetida mindhiciro xanuunka burbiyuudka minka qalloocma ugxaanta oo qaldoonta cudurrada sababa dhiciska sixidda bilaha ka qaldama hooyooyinka urka leh infekshinka ku dhaca kaliyaha iyo kaadi mareenka dhalmo la'aanta ee baa dhalmahaye sidoo kale isbitaalka qalabka casriga ee uu adeegsanayo waxa kamid ah qalabka lagu baaro kolestaroolka qalabka lagu baaro hepatitis A hepatitis B hepatitis C daaweynta dhiciska bilaha hore iyo bilaha dambe tiimka ku qabanaya howshan waxa hogaaminaya Tutor Cabdullaahi Deegaan fiire gaar ah daawooyinka iyo sheebaarka iyo kombiyuutarka dhamaantood waa lacag la'aan goosashada lambarka dhakhtarka kaliya marka laga reebo isbitaalka sidoo kale waxa lagaga daweynayaa xasaasiyada gudaha iyo xasaasiyada banaanka Deegaan Voluntary Hospital waxa uu ku yaalaa xaafada Gubta Ciise Cabdi agaarka Ifka Xalan wixii faahfaahin kala xiriir telefoon lambar eberle xal 5 42 21 91 amaba eberle xal 7 eber 7 44 ugu dambeyn eberle xal 6 66 68 92 hore u gaarar isbitaalka bulshadu ay ku diirsadeen Deegaan Voluntary Hospital wiilkii farxaan ahaa jaceylkii goortan u sheegtay halkan kuma aysan oolin wax badan bariyo badan baa ka soo waray anigu maxaan sameeyay wax yeelaan maana degdeg igu jira mise asiga saas iska aniga farxaan had hadal way dhaha haye waayo waan kula qaybsanaya iyo haye waan ku jeclaa iyo garab baan ku siinaya had intaas ma had sanado ka sugaa
labada beri aan ka sugayba waxay ila mid tahay anoo sanado badan wax ka sugaya weliga ismaan dhayn saan baax u jeclaanaysaa jacaylku la sheegay ma sidaan ba hadaan ogaan lahaa waa hore isdaba qaban lahaa laakiin ismaan dhayn sidaan baad noqonaysaa filisay balis hadar maxaa ku dada maxaad sameynaysaa wiilka waa kan iga sii daba cararaay tolo walaashi sirta meelahan ku arkaa ayada ma xageed umra u sheegtaa anigu wada cid kasta waxa uma sheegan kareen maxaan sameeyaa sanadkan anigu balaayada sanadkan xagee ka jirta hadar ma u taag gurigiis ma aada oo soo burin kara duur rabo reerkooduna xoogaa waa kulliin reerkooduna ay soo buriyaan baa ka baqaaya hooyaday waatana isbitaal baa ku geeyay isbitaal maxay iga geynaysaa aniga ma xanuunsaniye cudurka hay waa jaceylka aniga farxaan u qaaday farxaan aniga saan ku yeela jaceylkayga maad waxa iga qabad habeenii maalin saan u ooynay ilintii baa iga dhamaatay wax kale aan sameeyo ilaahay abuurtay ma jiraan la jaceylka la sheegay masana wali sameeyay waynaani wadaale tarbiyada inteeda ku tirtiraamaani wali baa hooyadan waa meel kasta sameeyay hooyadan waa tanaayadina oo intii ka dhamaatay waxaan maani hooyaday wax loo dhaantay aniga adigan ka fikiraya hooyadan iga fikiraysaa ilaa rabbi raxmaan wada taladeeda ku saartay saantaladan iga badal waxaan sameeyaa deer bal yaa hooyaday igu imaan ilintan oo intaan aan isku tirtiro waxaan sameeyay malaabal oo intaan afka tirtiro ilinteeda say u daadanaysa biyo waxaad moodaa dhulka lagu shubay dhulka say ugu daadata kaliya farxan sidan ma sii dhaantid maxaa kugu dhacay miyaadan beer jiracsan lahayn gabar miyaysan kula dhalanin farxan gabar lama dhalan miyaa muxuu sidaan ii galayaa aniga sanadkan maxaa igu dhacay hooyada hadda dadday biri ma isbitaal baa ku geynaya haday tiraad xagee i xanuunaysa meel i xanuunaysa ma lahan fashilka ana hooyada xitaa inay ogaato baan ka baqaya ee hooyada wax kastaba ay ogaato maxaan sameeyaa yani waa yaabane الله ربي الرحمن hooyada murugta ka qaad anigii waa murugeysana hooyada way la murugeysan tahay labadana dhaxdan ku lunnay saan farxaan uga daw orday aan uga waxyeelay waa kan anigii dhan isbedel maskax ma hayo wax ma qabsan karo abeen ma seexdo maalin ma seexdo cunadii ka go'ay maxay rafaadkani maxay tahay jacaylka la sheegay sidaan ba hadaan ogaan lahaa sidaan dhanba isku waxyeelin leen oo iska waxyeelin lahaa shalay iga taagantahay shalay hore waxa loo yiri shalay way dambaysaa mooy shalayda ma horeyso marka tiibaani had sanadkan ay haysata walaalo rabbi raxmaan adoon taladeeda ku saartay oo farxaan aniga hadal fiican oo aniga qancin kara oo ku seexan kara iga الإرشاد هربال ميديسين دمان dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho nawaaxigeeda waxa loo geysinayaa in la furay xarunta الإرشاد هربال ميديسين oo ka howlgalo Dr. Cabdiraxmaan Dr. ayaa ku takhasusay cudurrada kala ah dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka Allah ubadka baxshe infectionka ragga iyo dumarka baawasiirka oo hab casri ah lagaga daweynayo caado wareerka umulsabiyaanka dhabar xanuunka xoojinta raganimada kor u qaadida ugxaanta dumarka xaruntan waxa sidoo kale aad ka helaysaa saliida timaha dheer saabunta baabiisa finanka wajiga iyo kareemo soo celiya bilicda wajiga xarunta al-Irshad Herbal Medicine waxay ku taalaa inta u dhaxaysa isgooska Bakaaraha iyo wadada Bangaariya waxayna ku dhagan tahay Somali Sports wixii faahfaahin kala xiriir ebil 4 38 67 37 ama ebil 6 67 89 39 ebil 8 96 ebil 2 ebil 2 wiilkii Fahad ahaa shal waan is aragnay waxa waaye arakabo waxa uu mar walba igu soo qaadaa in nolosha iyo seetahay iyo maxaa noloshaada ka waran arimahaas iyo waxa qoyskayga la daa laakiin waxa u maleynayaa wiilkaas in hami badan ku jiro sadaradeeda runtii wuxuuna ila muuqdaa qof iska danyar rafaad ka muuqda hadda shal wuu baroona marka arkay wuu xoogaa wuu labisnaaba maalintii aan arkay koowdi baranay isagoo darbi fadhiyo oo daruuftii danta ka muuqata ayaabay sidaan arkay lacagnaas yaa damcay oo caawiyo waxa waaye
waaye uu iga diiday marka qofkaas haddana hadda waxaa lii sheegay inuu gaargacan uu wadaba laakiin qofka bini'aadanka lama liido nolosha sembrise kuugu soo marta xaalad walbo ee kuugu soo marto waa inaa u qaataa wiilkaas hadda gaargacanlin uu yahay liisoo sheegay saas daraadeeda kama xumida waxaa waaye qof shaqaysanayo xoogiis qof maalanayo waan dareemayaa inuu yahay qof yacni dan heeso daruuf heeso laakiin qof sanadkan dee qof oo shaqaysanaynin oo waxay ahaan ma arkin maxaa qaldan dee daruuf iyo sanadkan waaba laga tegaba laakiin nolosha mar walba say kuugu soo maxeeto ee kuugu soo aad waa inaa u qaabishaa irisay yaa igu caay xilliga maalis waa anaa problem iyo book iyo wixiisan yahay yaa ila hadlaya bayana kula hadlay maxaa dhacay ilaa inta gudu socdo maanta maxaa dhacay kuma jeedinba ma ho aniga isku problem iyo xoogaa iska mashquulsanaa maxaa ka caawiya way horta caawinta la gaarin maxaa ku dhacay adiga ilaa isgoyska wadadaas dhan gudu socdo maanta dhan waana isla hadlaysay faraata taagaysay sidii qof macnaha oo wax ku furan yihiin maxaa dhacday waxay sheegtaa wax ku furan waxa macnaha oo saas fara u taagaysay maanta dhan oo saas isku hadlaysay ishiga baay wallahi waaw yaa banahay inta iga soo raacay xuudhow wax waan camlaab gacma iska taagtaagay ma iska warqabinba wallahi wax iguma dhicin caadi leh xoogaa problem family dhankaas la iska kaheystay okay kulli aniga waxa la yiraahdaa masar xaliya la yiraahdaa magaciisa saxana waa Mas'uud marka baay hadii wax la u baahan wax laga caawiyo macnaha problem jiro ishaag ana ka caawinaya wax waliba ana xalinay masar okay alla marka raxta ugu magac daray marka ishaag hadii problem haysan ka xaliye يا بدنا مستر حليا اللي ده مستر أوكي اللي ده كلها مسعودة اللي ده سدح مقعو بسكوة تبابني عجيبة والله ما أنا ضد حليم ويانا أنا ولي ما بلي حليم بسوا معها قفي أكو جد إلى ما أنت نروح هواي مرة فرا هرتعمل بديسي كل يوم لو وفرين هاي شيء ورقبين سوا معها ما يسكبر رقبين بينا فرتك تاجي ما هو جنب والله هذا لا بدي شيء أوكي نبكى أو معناه يعني وحفهم ويسي وهذه حتى اسكنترول ويسي وحكي يعني شيء وحواي قرن كل أنا وحخش شيء مصلحة حليم مسعود الله شيء واحد إنا تاكلين جعله مركز صراحة كفكري إنا قف يعني قفبان أرميسي وحيسان كفكري ما فهمتي حبض أنا أتاكل أوكي هدي أساس تهاي مركا magaca sheeg hadii dadka ama taakulisid wasata kuleena dhib malahan marka adna magaca sheeg kulli anoo ku sheegay inaan saddex magac lahay magaciisa saxan uu yahay Mas'uud oo ku sheegay adna magaciisa soo basbal ani waxa la yiraahdaa ansal barasho wanaagsan xaafadana degantaa mi adi ma uu qarkine والله باي horta waa iska xaafad badan laakiin mid daran badan xaafad daran badanaha bis magaca waa badan yahay xaafadaadu waa badan tahay xagee lagu raacayo aan electric xataa badanaha electric ma aragta waa badan haba waaw yaa banaha Soomaaliya hadda la is aragna waxa waa magacyo badan iyo waxa waa dana guriyo badan aad sii sheeganaysaa waaba kaaya xaafadda hadda degantaa in waa kugu arki laamuhu okay dhima hadda ka bacdi waxa way iska dhargeena waa arkayna saas ku arkayna kulli magaca soo dhow ansal barasho wanaagsan ana waxa la Mas'uud saan ku sheegay waaye marka baay barasho wanaagsan soo dhow haye insha Allah Mas'uud waa ma santahay haye baay iga tagdhe war badana waaba yaa Mas'uud ali dhaha okay ali dhaha iyo wax la maanta dhan wadada u taagnaa wadada ayada soo mar aan inaan ku arko mooyaane waxa waaye waaba yaa wallahi dad le ma qor inaan ku arko meeshan waadina si daqiiqa laahi ayaantan asxaabta mabul arkaayo qaarkood waxaan ku dhahay jaamacadda ma imaanayaan way isaga gambinayaan gabadhii filsan ahayd shalay saa isku sheekaysaneenay oo hina iska qabsatay iyo baroor wallahi yaab arintii filis aan shalay kala kulmaaba ilaa hadirtaan aan ka qaracsanahay oo ka yaabanahay gabadha iyadoo fiican oo caafimaad qabta saa ogaa waxaan usanahay iyo oohin iyo barooreeba ka bixi weys qaracan aniga runaantii ma aqaan gabdhahan waxa ku dhacay midii kalena 2 bilood ma bala arkin ilaa hadda jaamacadda ma soo istaageen hay qoftaana waa filsane iyo waraseetahay hay saara iyo warabay waa fiicanahay caafimaadka kaliya maxaa inta fadhida gabdhii gooniyeeba noqdeen waaba ka yaab adnama oo rabta tii kala shalay idoo oynaysa arkayaan agti filis ma qaan wixii ku dhacay iyo waran horta caafimaadkaaga seetahay ma sha Allah fiicanahay filisna maxaa ku dhacay inta sheegaysa maxay tahay barabala familka ma haysta horta qoftaas xaq ka muuqata iyada u ag tahay batalow ina ila tahay ma laga yaabaa shalay halkaan ku sheekaysaneenay gabadha iyada caafimaad qabto oo fiican saa ogaa iyada waxa arkay ooyayso oo meel ba ay xanuunayso kuwaas indeeda markaan fiirino qof oo caafimaad qaba oo agtahay wallahi ma aqaan waxa ku dhacay wallahi ma ka waraysaa qoftaas xaaladeeda wallahi qoftaas ana waa arkay laakiin meel kale aydan u socotaa hay war ma ka haysaa horta adiga caafimaadkeeda ma ka waraysaa oo xaaladeeda wax miyaa ka ogtahay
horta way fiican tahay midda kale wiil walaalkay ahay daba dhigataba anakana wiilkeena ma rabno shukaansi iyo inuu waxyaabo kale niyadiisa geliyo inuu wax noo barto kadib maadaama qarash badan iyo dhibaatooyin badan uu soo maray ها قبل إلا وحي شل أويس والك ما جعشة كده أوينيس وابيا ومقطع نام حاكو ودا إيشك بحم إيشك نحن سنة ما ذكر لا بلا إلا حضرتنا وكملوا سنة قبل أيوة والك دو جعشة محا قبل وقرأي ويسنا ما أبا wiilkeena jacayl iyo afaaraad ma soo jeedo inuu wax noo barto hadhow nin ismaamuli karo mustaqbalkiisa hagaajin karo inuu rabaa rabnaa marka mideeda kale caadi waa maxaa dhaca wiil waaye asoo gabadha la sheekeysanayo oo shukaansanaya haddana mustaqbalkiisa wixiisa dhisan karaa marka maahan in intaas kuli idinka dhinac isku raacdaan adaa gabadha walaashiisa oo gabadha waa fahmi kartaa xaaladooda adina naftarkaaga inaad garab siisay aad gabadha maxaa may ay naaqs ma arki karaba ma fahantay mideeda kaleba waxaan arki jiray gabar la jeclaaday gabar wax jeclaanaysa iyadoo horteed ma arki ilaa hadda waa la yaabanaha walaalahay adina naftarkaaga wadaadtaas ka dhigin mu'minadaas ka dhiganay haddii aad dartan lagu daba galab naftarkaa laga yaabo inaa wiil islaam saa u dhibayso oo ka oysiinaysa marka walaalahay inta caadi iska dhigtid gabadha gabar walaasheen oo waxbarashada nagula jirto waaye waa iska taqaana gabadha iska dabeecad fiican waaye marka inaa garab siisaa la rabaa wiilka walaalkaa u sheeg gabar baa kuu dhimanaysa ku dheh may abay horta runtii aniga qof aan daba galay ma jirto because aniga anaa la isoo raastaa markay ma fahantay midda kale wiilkana horaan kugu sheegay familkana hadaan nahay waa wiil yar oo wiil hadda soo kacay maskaxdiisa wali waa yar tahay shukaansi iyo niyad qofka laba qalbi ma lahan ma ogtahay marka waxaan rabnaa inuu niyad adiga ba hadartan u sii horkacay miya qalbi ma lahan iyo qalbigiisa xaguu jira waayahay dhib ma lahan aniga kule waa u sheegayaa xaalada istajiyan inkastoo iyada iga qarsato waxa ay qabto haddana adaa ii sheegay marka waxaan isku dayanaa inaan gabadhaas niyadeeda dejino maadaama murugo badan ay dareemayso bal adigana kule waa kaa codsanaya inaad garab igu siiso taas may garab ma kugu siin kara aniga walaalkay waxaas ma u rabo hay bal waaya waxaa iska dhigaysaa banaag oo yaanu ku arkina adoo hodhow dariiqada taagan wallaahi jaamacadii saaka waan imaaday xaalka magaaladan waa iska cakaran yahay wax waaye laakiin guriga waxaan ugu soo tagay buuggeygii yaraa oo quruxda badnaa daraad aan soo gadayay marka waa inaa buuggaas hadda doontaa oo aan aadaa cimilada kulala bismillaahi raxmaani raxiim qabo beryahan iyo roob waaba lagu diirsaday laakiin labadan bir waxaad moodaaba kuleel daran inay jirtaba dhidid wallaahi qurux maanta maalmo kulushahay wiilkan waa kuma adeer fuaad see tahay aabi waran seeta waa fiican aabe alxamdulilah xaalada ka waran adeer waa fiican alxamdulilah dhibaato ma qabay jabiga kal ka waran alxamdulilah aad baan u fiican aniga maasha Allah barwaaqa lanaanteeda maasha Allah wallahi haddeeran jaamacadii intaan tagaan buug yar guriga ugu soo tagay buugi hadda marka aan dib ugu laaban rabaa marka bal waxbarashadaadii ka waran waa maxay buugan soo ilaaway qalina soo ilaaway maxay isku maan ogeynay may adeer waa saaki horaan rooror intaan ku baxay aan hadda roororkii ku soo laabaan isdhahay marka waa alxamdulilah adeer waa guriga marka intaan isdaw maraya buugi kusoo hilmaamay marka asigoo meel saarnaan ka sotay miiska kor aabe ma sha Allah aab waxaan ka rabaa bal waxbarashadaada dadaalkaaga meesha ka sii wad waxbarashadaada adkay ciyaal suuqan fooda jirta iyo waxaan inta iska ilowda aabe waanadeeda qaado ma garatay marka aabe jaamacadii hadda waad dhigataa laakiin ciyaal baa ku fasahaadinaya wiil fiicanna waad u ekad aabe bal lacag oo ku soo diri doona insha Allah lacag badan baan ku soo diri doonaa qamrigana cabaysi iyo sigaarkan iyo iska daa insha Allah maya waxa ciyaalkan hadda qashinka isticmaalaan oo la leeyahay qashimadan yar oo ciyaalka subhanallah ilaahan ka maangal aabo ilaahan ka maangal waxyaabahaas la sheegaya afkeyga ma wasaaraba ilaahayna afkeyga ma wasaaraba jaamacadii waxbarashadeedaan iska wadaa oo wax waayba waxbarashaan isku mashquulaan dhan waxsaan ii dhawey waxbarashada waayba aabo marka xitaa lama sheekaysan buuggeeyga qalinkeyga gurigii iyo shaqadeedaan u dhaxeeyaaba aabe ma sha Allah insha Allah Allah ku fududeeyo hawshaada waxa waaye wiilkii aan aabaha u ahaa isna sidaas oo kale shara waan la dardaarmay ana waan kula dardaarmayaa shaqadaada ku ekow waxbarashadaada ku ekow ciyaar suuqnimadana iska dhaaf maya aabo wallaahi waa mar walba aabahayga intuusan geeriyoodan ka hor wuxuu dhihi jiray aabo wax baro oo qofka wax bartaa guul gaara marka wallaahi alxamdulilah waana aabba iyo hooyo waanadeedii aan alxamdulilah iskaga joogaa magaaladana waxa waa hadda galin waa shaqeeyaa oo galin muqaayadan ka shaqeeyaa galin subaxii hore jaamacadeedan dhigtaa alxamdulilah marka waxaan sheegay ma walahaba ilaahay wixii dhib ah naga hayo magaalka xaalkeedana waa u jeedaa oo dadkii waxa weeyaan dad wax raadinaya ma nin walbooba wuxuu isleeyahay aabba iyo hooyada ku shaqeys marka dadka noocaas oo kale namiyiye marka alxamdulilah inaan galin aniga xaniyayga aan koro galin aan shaqeystay iyo waxyaabahaas aan ku jiraa aabo insha Allah aabba sidaas noo haato aniguna waxaan kula dardaarmayaa inaad sii xoojisid waxbarashadaada maqaaxiyo farfariisigana iska dhaaftid
jawgaaga uu deganaado waxbarashadaada ku ekaatay saasaan noo habto ma muqaayada galabkii ma u fadhiiso anaaba ka shaqeeyaba ها ساسان كهربا مركا مقاحيدا ka shaqeynaya ba kuwa jaadka cunaya ba kula joogo yeesan kuwana iska ilaalin insha Allah maya waa waxa hadda iska ilaaliyo dad qof wax qashin isticmaalay ilaahan ka magan gala waa qof arday oo asluubtiis wanaagsan tahay qofka arday sidiis banaan waxa la rabaa in cilmiga iyo aqoonta uu baranayo ama waxa uu baranayo inay ka muuqdaan la rabaa waxa la yiraahdaa qofka haduu cilmiga uu leeyahay waa inuu aqli ku darsadaa marka alxamdulillah aqliga iyo cilmiga Allah noo wadiyo dhalinyaradeenna hadda sanadkan waxa iska tahay wiil iyo gabar qaarkood waa iska haleysay 100% lama dhigi karo dhamaantoodna lama wada dhigi karo qaar baa iska xuno iska dhib badan dadna waxay iska yihiin ba ayagoo nolol raaxo leh ku nool haddana nolosha raaxo leh ayagu ku nool aysan ka faa'iideysan halka qaarka kale ay ka faa'iideystaan alxamdulillah nolosha dhibka badan anoo ku soo koray haddana maanta alxamdulillah dad badan oo nolol ladnaan ah ku soo koraan dhamaaba qof xaniyiisa koro shaqeysto maanta alxamdulillah ilaahay du kuuron yahay xitaa gabar iyo waxyaabahaas aan isku mashquulino mustaqbal inuu dhisto diyaar waa wax bartaan alxamdulillah marka aabo insha Allah waa tala fiican aniga isiisa adiguna nafsadaada siisay marka saasaan noo hataaba insha Allah insha Allah aabo kulay isma dhaafna duwal raahdo insha Allah haya wallahi bilaa adiga lacag ku soo diraa oo ilaahay ila soo qaad lacagtaas daahel maarad wax badan ay tiraysaa wallahi billahi marka waxa waay ilaahay hay iga soo qaad duwal raahdo waagaaga dhegaystayaal halkaas ay noo joogto sheekadii la magabaxday sixir iyo saxriir jecel qaybteedii lixaada sheekadan waxaa soo saaray imaam asli yuusuf gacal waxaa dhanka farsamada ka qaabeynayay farsamayaqaan maxamed deeq cabdulla soodaal maxamed deeq alfa intaan u kulmi doono qaybteeda kale ka xiisadii xamaasad badan waa bahdii sheekada oo idina sidaas iyo isma dhaaf